Assalaamu calaykum. Finanka ugu badan ee wajiga ka soo baxa waxaa loo yaqaanaa afka qalaad acne. Afka Soomaaligana waxaa lagu yiraahdaa findoob. Waana nabro yaryar oo ka soo baxa sanka kaliya ama wajiga oo idil. Waxayna ka dhashaan qanjidho maqaarka ku dhex abuuran oo aad u yaryar oo soo saara dufan maqaarka subkiya. Qanjidhadaas ayaa afka ka xidhma, kadibna way bararaan. Markii la riixana waxaa ka soo baxa wax cad oo adag oo dadka qaar ay moodaan malax. Findoobkana waxa uu ku dhacaa wiilasha iyo gabdhaha intaba, wuxuuna u badan yahay xilliga ay qaangaarayaan. ugu horeyn daawadayaal waxaa isweydiin mudan meeqa nooc ayuu u kala baxaa findoobku. haddaynu taa ka jawaabno, marka ugu horeysa ee finku soo bixi raba waxaa la dareema meel jidhka aan la sinayn oo weliba kacsan. waana astaanta ugu horeysa oo la dareemo inta finka uusan soo bixin, waxaana afka qalaad lagu yidhaahdaa kamadho. waxayna arrintaasu dhacdaa markii dulduleelada wejiga ee aadka u yaryar ay bilaabaan inay xidhmaan. waxaana jira waxyaabo badan oo xidhi kara, kuwaasoo aynu kaga hadli doonno qaybaha dambe ee muuqaalkeenna. waxaana loo yaqaanaa kamadhajanig. sidaa daraaddeed waxyaabaha laysku qurxiyo oo wejiga aad u isticmaali rabtid waa inay noqdaan non kamadhajanig, taasoo macnaheedu yahay dulduleelada wejiga ma xidhayaan. sidaa daraaddeed shirkadaha qaarkood way ku soo qoraan waxyaabaha ay sameeyaan oo maqaarka loo adeegsado. arrintaana waxaa ku xigta in dadka qaar ay isku arkaan fin afka hore ka furan, waxaana loo arkaa sidii dhibco madmadow oo kale oo wejiga ku firiirsan. waxaana loo yaqaanaa black heads. markii aad loogu dhowaadana waa sida godod yaryar oo aad moodid in la dulduleeliyey. waxaa kaloo jira fin afka ka daboolan oo kuusma, waxaana ku jira wax cad oo jilicsan oo dadka qaar ay iska tuujin karaan. waxaana loo yaqaanaa white heads. taasina wax dhib ah badanaa ma reebto. markii la tuujiyo maalmo kadibna waa ay iska baabaadaa, caadi ayaana wejigu ku soo laabtaa. waxayna badanaa lagu arkaa sanka dhinacyadiisa iyo gadhka. haddaba dhinaca kalena meelihii dufanku uu ku xidhmay ayaa caabuq yeesha, waxaana lagu fahmi karaa in xanuun la dareemo markii la taabto. haddii la tuujiyana waa uu ka sii daraa oo barar iyo xanuun ayuu keenaa. sidaa daraaddeed finanku si dhaqsaa ayay u faafaan, wayna guduudataa ama casaataa meesha la tuujiyey. waxayna reebtaa haar madow ama madow wejiga ku hadha. waana muhiim in aanad tuujin fin xanuun leh oo jidhkaaga ka soo baxa, waayo taasi waa khalad ay dad badani ku dhacaan. finka markuu sida noqdana waxaa loo yaqaanaa babiolis ama bimbalis, lamana taabto. haddaba haddii aad tuujisid finka hore waxa uu isku beddelaa wax loo yaqaana basjuolis, taasoo ah fin malax ay gashay. welina waa muhiim in aanad taataaban oo aanad ka dhiijin malaxda, haddii kale wejiga waa uu kaa hallaabaya. waxaana jira daawooyin loo qaato markii xaaladdu halkaa gaadho. waana muhiim inaad dhakhtar maqaarkaa la xidhiidho, laakiin inta ka horaysa siyaabo dabiiciya ayaa loola tacaalaa. haddaba haddii finka ay waxba ka soo bixi waayaan oo uu sii bararo, waxa uu isku beddelaa xaalad loo yaqaano najual. qofkana waxa uu wejigiisa yeelanayaa kuuskuus tiro badan, waana qasab inaad dhakhtar la xidhiidho markay arrintu sida noqoto. ugu dambayntii findoobka waxaa qofka la dhihi karaa wuxuu qabaa findoob markii ugu yaraan 20 fin ay ka soo baxaan, taasoo haddii si qalada loola tacaalo reebi karta haaro wejiga ku samaysma. daawadayaal iminkana bal aynu ka hadalno waxyaabaha keena findoobka. inkastoo waxyaabaha toos u keena finankan aan la garanayn, laakiin waxaa jira dhowr sababood ama dhowr waxyaabood oo dedejiya ama saacida soo bixitaankooda. waxaana ka mid a daawooyinka qaar, sida daawooyinka isticmaalkooda aan laguu qorin, gaar ahaan kuwa korka la mariyo. waxaa kaloo finankan keeni karaa heerka hormoonka qofka ama hormoonada kacsan ee loo yaqaano androgenes ayaa lala xidhiidhiyaa soo bixidda finanka wejiga oo u badan dhallinyarada, xilliga qaangaadhka ama wakhtiga haweenka uurka ay leedahay. waxyaabaha kale ee keeni kara finanka wejiga waxaa ka mid a jeermiska. waxaa la sheegay inay jirto bakteriya badanna lala xidhiidhiyo inay ka qayb qaadato samaysanka haaraha wejiga. markii ay finanka soo baxayaan kadib, in bakteriyadu ay finka wejiga ku dhalatayna waxaa lagu fahmaa in finka uu xanuun yeeshay ama midabkiisu isbeddelay. waxyaabaha kale ee keeni kara finanka wejiga waxaa ka mid a qanjidhada dufanka wejiga oo aad u shaqeeya. haddaba haddii qanjidhada soo daaya dheecaanka subkiya maqaarka ay aad u shaqeeyaan,
taasi waxa ay keeni kartaa in saliidda ay ku xiranto sidaasna ay finan ku samaysmaan. waxaa kaloo keeni kara finanka wejiga ka soo baxa diiqadda, welwelka iyo fakarka. haddaba fakarka iyo istreeska ama welwelka waa lala xidhiidhiyaa findoobka. waxaa kaloo keeni kara hurdayarida ama hurdo xumida, waxayna ku jirtaa waxyaabaha ka qayb qaata findoobka. waxyaabaha kale ee keena finanka wejiga waxaa ka mid a cabbitaan yarida, waayo dadka badanaa aan cabbin biyaha caadiga ah way ka finan badan yihiin dadka aadka u cabba biyaha. waana arrin cilmi baadhis lagu ogaaday, sababtoo ah dadka jidhkooda uu leeyahay biyo ku filan badanaa ma xidhmaan qanjirada dufanka ee jidhka ku yaala. waxaa kaloo keeni kara findoobka cuntooyinka qaar la sheegay inay xidhiidh la leeyihiin findoobka, sida jukulaatada, caanaha, cuntooyinka la kaarbonhaydraytka, fitamiin E-ga iyo fitamiin E-ga. waxyaabaha keena findoobka waxaa ugu dambeeya alerjiga iyo xasaasiyadda, waayo dadka qaarkiis wuxuu jidhkoodu falcelin ka sameeyaa cuntada qaarkood ay isticmaalaan, waxayna taasi keentaa finanka wejiga ka soo baxa. haddaba daawadayaal, findoobka waa dhibaato ay sheegtaan in ka badan 85% dhallinyaro ah, mana aha cudur halisa, laakiin dhibaatada ugu weyn ee uu keeni karaa waa wejiga oo haara yeesha, dhaawac nafsaaniya, niyad jab iyo ka go'idda bulshada. taasina waxay u badan tahay gabdhaha. haddaba waxaa isweydiin mudan sideebaa finanka looga hortagaa. taa haddaynu ka jawaabno waa inaad nadaafadaada ku dadaashaa, waayo nadaafadda waxay door weyn ka ciyaartaa furidda afka qanjirada saliidda ee xidhmay si aysan finan cusub u samaysmin. sidoo kale waa inaad si joogta ah wejigaaga biyo nadiifa ugu dhaqdaa adigoo aan isticmaalin saabuun ama kiimiko kaleba. sidoo kalena finanka ka daa gacmahaaga hana tuujin, waxaa ku jirana ha ka soo saarin. sidoo kale ka fogow cunooyinka warshadaysan iyo kuwa bacaysan. sidoo kalena jooji isticmaalka sigaarka iyo daroogada kaleba. haddaba daawade, waxaa isweydiin mudan findoobku daawo ma leeyahay. haddaynu taa ka jawaabno, findoobka waxaa loo isticmaalaa daawooyin badan oo ay ka mid tahay boomaatooyin la marsado, laakiin waxaa kugu habboon inaad u tagto dhakhtarka maqaarka si loo arko finankaaga noocooda iyo heerka ay marayaan, sida aynu ku soo faahfaahinay qaybtii hore muuqaalkeenna. waxaa kaloo jira xanuuno maqaar oo dhowr ah oo u eg findoobka oo lagu daaweeyo daawooyin ka duwan. intaa kadib daawadayaal, siyaabaha dabiiciga ee loola tacaalo findoobka. waxaa jira waxyaabo dabiiciya oo lagula tacaalo markuu findoobka cusub yahay, dadkuna way ku kala duwan yihiin siday ugu fiicnaadaan. sidaa daraaddeed waxaynu halkan ku xusi doonnaa waxyaabaha waxtarkooda la xaqiijiyey. haddaba fadlan, haddii aad tahay dadka alerjiga qaba, waxaa laga yaabaa in waxtarka daawadhireedkan sidii la rabay inaad ku noqon weyso, ee la xidhiidh uga horayn dhakhtarkaaga. intaa kadib, khalka tufaaxa ee aan la sifayn ee loo yaqaano unfiltered apple cider vinegar waxaa badanaa lagu darsadaa cuntada sida saladhka oo kale, wuxuuna wax ka taraa findoobka, wuxuu qallajiyaa saliidda badan ee wejiga, wuxuuna furaa qanjidhada xidhan, wuxuuna la dagaalamaa bakteeriyada wejiga ku dhalata. laakiin waa inaad xaddi yar ka isticmaashaa marka aad wejiga ku dhaqanaysid, kadibna biyo aad ka dambaysiisaa. waxaana laga helaa dukaamada qaarkood isagoo diyaara. waxaad kaloo ku daaweyn kartaa nabraha iyo finanka wejiga ka soo baxa malab iyo qorfo laysku shiiday. sidaynu hore uga soo hadalnay, labadan daawo waxay aad ula dagaalamaan caabuqa noocyadiisa kala duwan, gaar ahaan kuwa maqaarka ku dhaca. haddaba 2 qaado oo malaba iyo 1 qaado ama 1 malgacad oo qorfo ah ayaad isku shiidanaysaa. markay xanjo camal isku noqdaanna ayaad ku dhijinaysaa meelaha nabraha ay kaaga yaalaan muddo 10 daqiiqo ah, kadibna waad ka dhaqaysaa. ogow waa in malabka uu yahay mid dabiiciya oo saafiya. midhaha geedka babayga ayaa isaguna ka mida waxyaabaha finanka lagu daaweeyo. haddaba sidaynu hore uga soo hadalnay, geedka babayga waxaa ku jirta maado loo yaqaano babayin, taasoo ka hortag u ah caabuqa iyo samaysanka malaxda, gaar ahaan markuu aad u bislaan. markaad qolofta iyo maraha kala saartid babayga, waad shiidaysaa adigoo biyo aan ku darin. markuu cajiin oo kala noqdo ayaad marsanaysaa wejiga 5 iyo 10 daqiiqo, kadibna waxaad uga dhaqaysaa ama uga maydhaysaa biyo diiran ama qandaca. qolofta oranjada ayaa iyaduna ka mida waxyaabaha lagu daaweeyo finanka wejiga. haddaba qolofta oranjada ayaa la shiidayaa, marka ay budan noqoto ayaad ku daraysaa biyo yar si ay u noqoto wax wejiga lagu dhejin karo. waxay kaa caawin doontaa in unugyada dhintay ee maqaarka ay kaa nadiifiso, qanjidhada xidhmayna inay furto. 20 daqiiqo kadibna waad iska dhaqaysaa ama iska maydhaysaa. geedka dacarta ayaa isaguna ka mida waxyaabaha lagu daaweeyo finanka wejiga.
haddaba sidaynu hore uga soo hadalnay faa'iidooyinka geedkan waxaa ka mid a in maqaarka uu daawo uga yahay cudurro badan. waxa uu yareeyaa bararka, finanka iyo caabuqa ku dhasha wejiga. sidaa daraaddeed dhareerka geedkan ayaa la marsadaa wejiga, waxaadna isticmaashaa nooca caleemaha balballaadhan ee qodxaha leh. markaad kala dhambaashid caleenta waxaad ugu dhex tegi doontaa wax sidii mara u cad oo khafiifa oo dhareer badan leh. taas ayaad ku tirtiranaysaa wejiga muddo 30 daqiiqo kadibna waad ka dhaqaysaa ama ka meydhaysaa wejigaaga dhareerkaas qalalay. qolofta muuska ayaa iyaduna ka mid a waxyaabaha lagu daaweeyo finanka wejiga, waayo muuska waxa ku jirta maado loo yaqaano lutein. sidaynu hore uga soo hadalnay ama aynu kaga soo hadalnay muuqaalkii ku saabsanaa waxtarka muuska, waxa uu jidhka ka saaraa sunta, wuxuuna ka hortag fiican u yahay hurka iyo balbalka maqaarka ku dhasha. qolofta dhinacyadeeda ee gudaha ee jilicsan ayaad wejiga ku tirtiranaysaa, kadibna 30 daqiiqo kadib ayaad iska dhaqaysaa ama iska meydhaysaa. waxaa kaloo lagu daaweeyaa finanka wejiga ka soo baxa biyo kulul oo liin lagu daray. markii aad wejiga ku uumisid ama qiiqa uu kugu baxo waxay si degdega kuwaasi u furayaan qanjidhada xidhan ee dufanka leh. sidaa daraaddeed isku dabool muddo 10 daqiiqo ah biyo kulul oo liin lagu dhiijiyey. maalintiiba hal mar samee sidan muddo usbuuca. cunista toonta ayaa iyaduna ka mid a waxyaabaha lagu daaweeyo finanka wejiga. fadlan wejigaaga toon ha u dhowaynin, laakiin cunnada ku darso, waxayna difaac kaa siin doontaa ka hortagga caabuqyada tirada badan ee aynu hore uga soo hadalnay. fadlan dib u booqo ama dib kanaalka uga baadh muuqaalkii ku saabsanaa waxtarka toonta. ugu dambayntii daawade talada lagu siinayo waxay tahay iska ilaali inaad marsatid kareem ama daawo uusan dhakhtar kuu qorin, waayo waxaa dhici karta in wejigaaga ay kaa fool xumayso ama ay kugu reebto haaro aan kaa fuqi doonin ama dhaawac maqaarka inaad isgaadhsiiso. sidaa daraaddeed fadlan la xidhiidh dhakhtar haddii finanka wejigaagu ay ka sii darayaan ama ay isbeddelayaan.